Nafiso iyo Ifraax waa walaalo labaduba aragga naafa ka ah. Waxay dhigtaan kulliyadda sharciga iyo qaanuunka ee Jaamacadda Muqdisho. Baahiyaha gaarka ah oo ay qabaan kama aysan hor istaagin inay wax bartaan si la mid ah ardayda caafimaadka qabta. Halgan adag ayay ku jiraan oo nolosha ah, kaasoo intaan aan soo gaari lahayn haddii uusan garab istaagin aabbahood Axmed Maxamuud oo u soo faaruqay dhammaan shaqooyinkiisa si carruurtiisa oo 4 ka mid ah aragga naafa ka ah uu u geeyo jaamacadda iyo iskuulka ay dhigtaan. Nafiso iyo Ifraax waxaa la dhashay gabar iyo wiil kale oo iyagana aragga naafa ka ah. Gabadha oo lagu magacaabo Shukri waxay dhigataa Jaamacadda Soomaaliya halka wiilkan uu dhigto iskuul. Sidoo kalena carruurtan dhammaantood waa xaafido Qur'aan, balse qoyska kama koobna 4 oo keliya. Maanta waxay u fadhiyaan Nafiso iyo Ifraax imtixaankii ugu dambeeyay ee semesterka 2 ee jaamacadda. Qaab ka duwan sida ay ardayda kale imtixaanka u galaan ayaana looga qaadaa, kaasi oo ah in su'aalaha afka laga weydiiyo kadibna loo qoro jawaabaha ay bixiyaan, balse su'aalaha waxay kala siman yihiin ardayda ku galaaska ah. أول مصنف في الحديث، أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح مسلم، ثم صحيح البخاري، وهما أصح الكتب بعد القرآن، وصحيح مسلم أصحهما وأكثرهما فوائد. صح ولا خطأ؟ ماذا قلت؟ قلت الصح ولا خطأ؟ أوكي تمام. Aabe Axmed Maxamuud waxa uu sheegay in shaqadiisa uu ka soo tagay si uu u ilaaliyo farxadda iyo qalbiga carruurtiisa. Sababta oo ah wuxuu sheegay inay fakarayaan haddii aysan waxbarasho ku mashquulin ama aysan shaqo aadin. Waxa uu gaari uga soo qaadaa xaafad fog si uu jaamacadda u keeno, isagoo suga ilaa ay xiisadda uga dhammaato maalin walba. Halka gabadha kale ee ka weyn Nafiso iyo Ifraaxna oo lagu magacaabo Shukri uu u kireeyay mooto bajaaj, taasoo jaamacadda geysa kadibna ka soo celisa. Labada gabdhood waxaa la kala yiraahdaa Ifraax iyo Nafiso. Marka waxbarashadooda hadda arkaysana waxa waaye dugsi hoose ilaa dugsi dhexe ilaa dugsi sare ay soo dhameeyeen. Dugsiga hoose iyo dugsiga dhexeba ilaa dugsiga sare oo ka saacidaad ahayd waxbarashadooda aad arkaysay waaye. Marka waxa waaye haddana jaamacadda dhigtaa meeqa sano hadda sanadkana hadda ay dhameeyeen maanta ugu eg sanadkii koobaad waaye. maxay bartaa marka kulliyadan hadda waxay bartaan sharaaca oo qaanuun. waxaa igu baqaalaa inay jiraan 2 canug oo kale oo midna jaamacad dhigto midna iskuul, marka ayagana iga war way fiican yihiin labada. gabadha kale jaamacadda Soomaaliya dhigataa, kulliyadda maamulka iyo maareynta ay dhigataa. marka waxa waaye ayadana saan oo kale un weeye. marka hal sanadkii u horeeyay ayadana wiilka iskool oo dhigtaa biyo bis quraankana mar hore. marka intaas way soo carruur kale ayana jira maya intaas carruurta kale wax barata way jirtaan oo jaamacadda Soomaaliya ka baxo dhameeyay way jiraan reer wax dhiba ma qabo. Professor Cabduuli Cabdullaahi Maxamed oo ah xogayaha kulliyadda sharciga iyo qaanuunka oo ay ardaydan dhigtaan waxa uu sheegay in ardaydan ay ku jiraan 10 arday ugu natiijada wanaagsan galaaska, isla markaana ay leeyihiin niyad wanaagsan iyo hami sare. jaamacaddan ay ka garabsiiso kamira dhalinta safarka waxbarasho oo ay ku jiraan. xaaladooda marka waxbarashada aad ay u fiican tahay, niyo ahaan way fiican tahay. aniga waxaan kamid ahay maamulkooda, waxaan kamid ahay macallimiinta wax ugu dhigto. galaasyada markay ku jiraan waxaad arkaysaa ayagoo ardayda la hadlaayo. macalinka markuu casharka matalan sharaxa dhameeyana su-aalo ka weydiinayo. taasina waxay caddeynaysaa imtixaanada marka laga qaadayo caddeynaysaa natiijadoodsa u fiican tahay. marka waxbarashadooda aad ay u fiican tahay. waxaan ku faraxsanahay inay yihiin 2 ardayood oo niyo leh. niyadooda aad ay u sareysaa, waxbarashada ka go-an ayaga iyo waalidkooda mar walba oo diyaar oo inuu caawiyo. jaamacadda Muqdisho waxay u taagan tahay in baahiyadooda gaarka ah mar walba la ilaaliyo. waa la ilaaliyaa, aadna waa lagu taxadiraa. mustaqbalkan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in qalab loogu talagalay ee jaamacadda keeni doonto. Aabe Axmed Maxamuud waxa aan weydiiyey culeysyada nololeed ee haysta maadaama uusan shaqaynin isla markaana ay carruurtiisa qaarkood lacag ku dhigtaan jaamacadaha una sii dheertahay nolosha kale ee reerka. waxa uu sheegay in culeysyada iyo dhibka uu alla keeno isla markaana uu isaga uun ka qaadi karo, laakiin wixii dadaal ah uu muujiyay isagoo ay wejigiisa ka muuqato karti iyo ku xirnaan alle. maya wax culeys ah haba yaraatee haysta ma jiro.
maba jecliba inaan dad kale usii gudbiyo wax culaysana maba leba carruurtayda oo ku fillahay alxamdulilah. Soomaaliya kama jirto dowlad xoog leh oo caawisa bulshada kuwa nugul, sidoo kale dalka kama jiro amni iyo fursado shaqo, waana duruufaha ugu adag oo ay bulshada Soomaaliyeed wajahayaan, waxaana si dhab ah u dareemi kara oo keliya kuwa la midka ah Nafiso iyo Ifraax iyo Nafiso oo aan la sheekaystay waxaan ka soo xiganayaa waxa ugu weyn ee aan ka fikirno waa sidii aan shaqo ku heli lahayn una caawin lahayn waalidkan, balse waxaan ognahay in dalka aysan ka jirin shaqo, kuwa annaga naga xoog badanna ay weli shaqo la'aan yihiin. Shukri, Ifraax iyo Nafiso iyo walaalkoodba waxay ku dhasheen ina la'aanta, waana dad ku qanacsan qadarta Alle, inkastoo ay wajahayaan dhibaatooyin badan oo nolosha ah.